بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ ذا سلطنة مقدشو قيبت سيديدات dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika dacalkiisa bari. بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ ذا سلطنة مقدشو قيبت سيديدات sidaan hore ugu soo sheegnay qaybtii toddobaad ee taariikhda magaalada muqdisho imaamada hiraab ee la wareegtay xukunka iyo gacan ku-haynta talada saldanada muqdisho iyadan sidoo kale waxay noqotay mid xoog leh oo xukunkeedu adag yahay horumarka saldanadana kasii waday halkay tii hore kaga tagtay balse sanadkii 1870 qiyaastii 250 sano kadib imaamada qabsashadeedii muqdisho waxaa u bilowday waqti uu hoos u dhac ku yimid taasoo ay sababtu ahayd mashaakil dhanka gudaha ah iyo mid kaga imaanayay dhanka dibadda si faahfaahsanna arrintaa waxaa uga soo waramay talyaaniga wuxuuna sheegay kadib geeridii imaam maxamed imaam axmed ayaa muran xoog lihi ka dhashay ciddii ku xigi lahayd imaamnimada taasoo lagu sigtay in uu dagaal buuxaahi qarxo imaamku waxa uu ka tegay 7 wiil taasoo mid ka mid ah wiilashaasi oo uu magaciisu ahaa cali imaam maxamed uu jagada imaamnimada buuxiyey isaga oo aan ka talagelinin 6dii kale wuxuuna sheegay talyaaniga curadkoodii oo ahaa maxamuud imaam maxamed lagu dilay gurigiisii oo ku yaalay xamarweyne wiilasha cali imaam maxamed oo kala ahaa shucayb cabdiraxmaan maxamuud iyo mahadalle waxay dagaal ku qaadeen ilmo adeertood oo kala ahaa cabdiraxmaan axmed iyo cali cabdiraxmaan iyo maxamuud waa la dilay waxayna ka tageen 3 wiil oo kala ah caamir cali iyo cumar xasuuqa kadib dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa laga talageliyey sidii loo duubi lahaa imaam cusub labada dhinac colaad weyn ayaa ka dhexaysay waxaana laga quustay in labada dhinac midna dhulka loo soo dhoweeyo kuwa taageersan in imaamka laga duubo ilmo cali imaam maxamed iyo kooxda kale oo rabay in imaamka laga duubo ilmo maxamuud imaam maxamed muranku wuu sii kululaaday waxaana ka dhashay in laysku fara saaro dagaal jika ba'da layskaga dhigay waxaana la sheegay in dagaalka labada dhinac ay kaga dhinteen dad gaaraya 500 oo qof ugu dambeyntii waxaa talada loo dhiibay jilib ka tirsan abgaal oo la yidhaahdo cumar cigalle inay ka taliyaan sidii nabad lagu heli lahaa oo loo joojin lahaa dhiigga qulqulaayo imaamkana loo duubi lahaa arrintaa way ku guuldaraysteen oo aan ka ahayn xal ah in dhulka la qaybiyo taas oo ahayd in dhulka ku dherarsan xeebta laga bilaabo raas ceel huur ilaa iyo nawaaxiga marka uu hoos yimaado wiilasha cali imaam maxamed iyo dhanka kale marka laga bilaabo warsheekh iyo dhulka gudaha uu hoos yimaado ilmo maxamuud imaam maxamed haddaan qaar ka sheegno imaamyadii soo maray imaamada ilaa iyo intii lasoo gaarayay waqtigii uu ishardigu dhacay waxaan ku bilaabaynaa imaam yacquub oo ahaa aasaasihii imaamada imaam xasan imaam yacquub imaam maxamed imaam xasan imaam maxamuud imaam xasan imaam diimaale imaam xasan imaam hilowle imaam diimaale imaam maxamuud imaam hilowle imaam cumar imaam maxamuud oo ahaa imaamkii hogaaminayay imaamada waqtigii ay qabsatay saldanada magaalada muqdisho oo ahayd abbaarihii 1620 imaam maxamed imaam cumar imaam maxamuud imaam maxamed imaam axmed imaam maxamuud iyo imaam maxamed imaam axmed oo ahaa imaamkii ay wiilashiisu isku qabsadeen imaamnimada sanadkii 1828 cumaaniyiintu waxay duqeeyeen dekadda muqdisho taasoo ay dowladda ingiriiska ka dambeysay sababtuna waxay ahayd in imaamada hiraab ay geeska ku dhufatay isku daygii ahaa in ay hoos timaado ximaayadooda imaamada hiraab waxay dagaalamaysay 10 sano si ay u ilaashato dhulka imaamada
ilaa iyo waqtigii ay xoogga ku soo galeen gumaystayaashii reer yurub. qarnigii 19aad sidaan hore usoo sheegnay imaamada waxaa u bilowday hoos u dhac, iyada oo arrintaa ay u sabab ahayd marka laga soo tago mashaakiladii gudaha ahaa ee aan ka soo hadalnay. waxaa kale oo imaamada soo wajahay dhibaatooyin kaga imaanayay gumaystihii ingiriiska. suldaankii zanzibar oo isagana dhanka xeebta culays ka saaray, iyo weliba labada saldanadood ee galladi iyo saldanada hobyo oo ciriiri ka geliyey labada dhinac ee dhulka gudaha ah. saldanada galladi iyo saldanada cumaan waxay si aad ah isugu garbinayeen ciddii gacanta sare ku yeelan lahayd xeebta banaadir. gadaalihiisa suldaan axmed yuusuf maxamuud ayaa gacanta sare yeeshay, iyada oo cumaaniyiintu ay lahaayeen dowr magac u yaal ah. xukunkii saldanada muqdisho oo ay kala tagsanaan xoog lihi ka jirto, hogaamiyeyaashii xamarweyne iyo shangaanina uu isqabqabsigoodii kasii daray, ayaa suldaan axmed yuusuf u yimid magaalada si uu u dhexdhexaadiyo, isaga oo wata ciidan 8,000 oo dagaalyahan ah. waxa uuna kala dhex galay labada dhinac, waxaana garta helay dhanka shangaani. hogaamiyihii kooxda xamarweyne ee laga gar helay wuu ka tegay magaalada, waxaana loo magacaabay nin ay qaraabo ahaayeen hogaamiyahaas. waqtigaa saldanada galladi waxa ay maraysay waqtigii ay ugu xooga badnayd, waxayna gacanta ku haysay dhaqdhaqaaqa ganacsiga foolka maroodi ee afrikada bari. waxa kale oo ay ka talinaysay labada daan ee dooxooyinka webi jubba iyo shabeelle iyo dhulka u dhexeeyo. joogitaanka cumaaniyiinta waxa uu ahaa uun mid magac ah. markuu suldaanka cumaan oo ahaa suldaanka zanzibar uu damcay inuu magaalada muqdisho ka dhiso qalcad, waxa uu huri waayey inuu fasax weydiisto suldaan axmed yuusuf, kaasoo isagana dhankiisa ka codsaday imaamka hiraab in uu u ogolaado cumaaniyiinta inay qalcadda ka dhistaan magaalada muqdisho, taa oo lagu magacaabi jiray lagareesa, si ay dagaan ugu noqoto wakiilkiisa magaalada muqdisho oo uu magaciisu ahaa sulaymaan bin xamed. shaqadooda ugu muhiimsanna waxay ahayd in ay suldaanka u ururiyaan canshuurta. waxa ay ugu baahnaayeen qalcaddana waxay ahayd si ay u sugaan ammaankooda, ee ma ahayn inay magaalada ka xukumaan. ugu dambeyntii suldaanka zanzibar waxa uu qalcada ka kireeyey talyaaniga, laakiin waxa uu kireeyey waxay ahayd dhismaha ee dhulka ay ku taagan tahay lahaanshihiisa waxaa lahaa soomaalida. sanadkii 1933 waxaa dib u dhis lagu sameeyey qalcadda lagareesa oo hadda muqdisho looga yaqaano sarta saciid barqash, waxaana laga dhigay mutaxafka soomaaliyeed museo dalla Soomaaliya, waxaana la furay 1 sano kadib. waxayna ahayd waqtigii uu Maurizio Rava ka ahaa gobernatoraha magaalada muqdisho. horaantii sanadadii 1930 gobernatorayaashii cusbaa ee Guido Corni iyo Maurizio Rava waxay bilaabeen in ay soomaalida la shaqeeyaan. soomaali badan ayaa askar loo qoray, kumanaan talyaani ahna waxay soo degeen magaalada muqdisho. magaalada aad ayay u fiday, sharikado warshado yaryar lehna waa la furay. talyaanigu waxa kale oo ay degeen dhulbeereedka magaalada hareeraheeda ah sida jowhar iyo jannaale. sanadkii 1905 talyaanigu waxa uu ka dhigtay muqdisho caasimadii xukunkii faashiistaha ee dhulkii lagu magacaabi jiray Italian Somaliland. dhanka kale soomaalidii ku dhaqnayd banaadir guud ahaan waxay wadeen diidmo ay u dhan yihiin inuu gumaysigu soo dego dhulkooda. walow talyaanigu uu gacanta ku dhigay magaalooyinka xeebta ku yaalay sida warsheeq, muqdisho, marka iyo baraawe, haddana waxaa looga dhaartay inuu hal tallaabo u qaado dhanka dhulka gudaha ah. waqti dheer iyo khasaare mug leh ayay ku qaadatay talyaaniga inuu dhowr kilomitir ka baxo magaalooyinka. waxaa si geesinimo ah uu hor istaagay reer banaadir, dagaallo taariikhda galayna la galay. taariikhda halgankana waxaan kaga hadli doonaa taxanaha soo socdo. intaana waxaa noogu dhammaaday qaybtii 8aad ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybaha soo socdana kala soco isla halkan oo ah janalka Rugta Hiddaha. dadku yaqaan